fadlan marka ugu horeysa subscribe channelkan si aysan ku dhaafin casharada muhiim ah. Dalka Mareykanka waa dalka adduunka ugu buuran ee ay ku nool yihiin, sida ay tahayna dadka badan waa ay shaqeeyaan mana xanibto buurnida dalkaasi wadamada soo koraya dhibaato ku qabaan. Haddaba waxaan halkan ugu soo gudbinayaa ilaa 7 cuntooyin oo ka caawin kara inaad kula dagaalanto buurnida. Oatmeal waa daqiiq ama badan laga sameeyo keega ama doolshada. Quraacda waxayna dhistaa murqaha waxayna yareysaa xaydka. Marka aroortii la soo tooso oo aad cunto quraac ahaan, oatmeal wuxuu kaa caawinayaa in aad muddo aadan gaajoon, laakiin hubso in aad macaan ama sokor leedahay waayo uma fiicna caafimaadka. Watermelon xabxab in qaraha ama xabxabka uu yareeyo subagga jirka kadib markii xayawaan lagu tijaabiyay muddo kooban. Xabxab qaran la shiiday wuxuu kaloo saameyn ku yeeshaa dhiigga halbowlaha isagoo yareeya khatarta buurnida caloosha. Tomato yaanyada tamaandhada waxaa ka buuxa fitamiino iyo kalooriis kuwa oo ay si toos u buurnida caloosha ula dagaalama. Yaanyada waa weyn haddii aad 9 xab yaanyada loo yaqaano oxytocin aad maalin walba shiidato, wax weyn ayaad isaga dareemaysaa. Lamb waa ilo qani ku ah fitamiin B, protein iyo tryptophan. waxayna ka hadal caafimaad leh. Haddii aad hilibkaasi laga saaro subagga mararka qaarkeed wuxuu horseedi karaa cayilka sida ilo tamar laga helo, sidaa daraadeed waxaa guuro unugyada taasoo keenta cayilka. Seafood raashinka badda waxyaabaha badda waa laga jecel yahay caalamka oo dhan sababtoo ah dhammaan waxyaabahaasi waa kuwa aad loo hubo caafimaadkooda, waana kuwa xakameyn kara buurnida. La dagaalanka dagaalka joogta ah ayna ku haya buurnida caloosha. Maqaayadaha sameeya waxyaabaha aan keenin buurnida intooda badan waxay isticmaalaan cuntada badda laga saaro. Dadka hilibka cad ee kalluunka iyo digaagga cuna way ka caafimaad badan yihiin dadka hilibka gaduudan cuna. Green vegetables quraacda ama khudradda cagaaran waxaa caalamka looga yaqaan nafaqeeyaha waxaana laga helaa faa'iidooyin badan. Khudradda cagaaran waxay leedahay awood ay kula dagaalanto buurnida caloosha. Waxa dhalin kara buurnida caloosha. Qofkii cuna khudradda cagaaran salaad quraacda ka hor waxay siisaa caafimaad calooshana ma buurato. Tea shaaha bigeeska